wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in saakay uu halkaasi ka dhacay dagaal aad u culus kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo fadhigoodu yahay hareeraha magaaladaasi. salaada subax kadib ayaa la sheegay in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay weerareen degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. gudoomiyaha degmada Ceeldheer Cabdiraxmaan Axmed Cumar ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu jiro duulaankaasi isla markaana ay dagaal adag ku jiraan. waxa kale uu sheegay in dagaalku ka socdo dhinaca waqooyi ee magaalada isla markaana ay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay jilbaha u aasteen gulufka military ee Al-Shabaab saakay ku qaadeen magaaladaasi. dadka deegaanka waxay soo sheegeen inay maqleen qarax weyn markii dambana ay dhaceen rasaas aad u culus. Al-Shabaab waxay boggeeda internetka ku faafisay inay saakay duulaanka ku qaadeen degmada Ceeldheer isla markaana ay ciidamadoodu halkaasi ka dagaalamayaan. ma jiro ilaa iyo hadda warar madax bannaan oo si faahfaahsan uga hadlaya dagaalka ka socdo degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Ceeldheer waxay ka mid ahayd magaalooyinkii dib looga saaray kooxda Al-Shabaab kadib gulufkii ballaarnaa ee 3 sano ka hor lagu qaaday Al-Shabaab deegaano ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya. ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa Ceeldheer qabsaday bishii December ee sanadkii 2023 markaas oo magaalooyin badan Al-Shabaab laga saaray. faahfaahin dheeraada lagama hayo khasaaraha uu dhaliyay dagaalkaasi maadaama uu weli dagaalku socdo.